dabal qaybtan qaybtii saddexaad dabashan qiimaha waxaan rabaa inaan isdaba raacino arrimaha khaladaadka ah ee iyaguna ka dhacay maamul goboleedyada iyo sidoo kale sida isku halaynta u sameeyeen runtii xildhibaanada maanta la soo doortay waa xildhibaano dhalinyaro badankooda yihiin dhalinyarada waxaa lagu yaqaanaa runtii in ay maskaxdoodu aad iyo aad u shaqeyso oo maskaxda qofka dhalinyarada ahi waa laga yaabaa inay go'aamo khaldan qaadato laakiinse lagama yaabo inay shaqey weydo qofka maskaxda dhalinyarada wataa markiiba speedka ay ku soconayso wuxuu ka fikirayaa 4-5 arrimood uu isku mar kusoo wada dhacaya ama hal daqiiqo gudaheed buu maqsaciisa waxay combine gareynaysaa dhowr arrimood oo ay isku mar ka fikirayo marka dhalinyarada runtii ay soo saareen maamul goboleedyadu badankoodu qaarkood waxay u fakarayeen ama ay isku lahaayeen waa dad idinku ay runtii aan waxba ogeyn waxba idin fakari karin oo idinka wan idin eeganaya laakiin dhalinyaradan runtii waxaad moodaaba inay odayaasha kaga fiican yihiin dhinaca markay noqoto inay waxyaalaha waaweyn iska ilaaliyaan oo wadanka compromise gelinaya ama wadanka dhibaato ku ah ama wadanka maaragtay runtii ama dhib ku ah oo runtii ku ah qaarkooda badan sidaa daraadeed waxaa kaloo muuqatay in arintan yani mucaaradka ay wada socdaan kaliya halka mabda aan wax mabda ku wada socdo laakiin halka arina ah farmaajo kaliya aan xumeyno in arintaas ay dhaawac weyn keentay Siciidani ayaa arintaas kaga dhawaaqay Garowe oo yiri maxay aniga waxa kaliya aan ka shaqeynay waxa weeye inaan farmaajo la dagaalamo macnaha farmaajo waa madaxweynihii Soomaaliya waxaana la isku raacsan yahay mucaarad iyo muxaafidba inuu wax qabtay waa mucaaradku laakiin bay daba dhigayaan ciidankii uu dhisay laakiin musuqmaasuq uu yareeyay laakiin maartay tan waa la sameeyay laakiin mushaharka dadku waa la siiyaa laakiin hada mar laakiin aragto oo maartay aad aragto waa wuxuu diidaya wixii qofka uu qabtay ayuu diidaya at the meantime xagga hore uu hadana ku qiray moogtay oo ku qiray si adraadeed sabab aad campaign-kaaga uga dhigto Soomaaliya wax badan oo loo qabtay u baahanta dhamaystir dawladnimo u baahanta cod iyo qof la gaarsiiyay u baahanta dhaqaalaha wadanka la hagaajiyay u baahanta shaqo abuurka dhalinyarada la bilaabay in heer laga gaaray u baahanta nabad iyo ammaan bay u baahanta in wadamada dariska laga celiyo u baahanta faragelinta shisheeye u baahanta in la dagaalamo laakiin inaad tiraahdo nin hogaamiyaha leadership waliba qofka ugu shacbiyada badan yaa hadeerto weeye farmaajo oo la isku raacsan yahay hadeerto shirkad Mareykan ayaa dhawata qoraysay oo tiri wali waa siyaasiga ugu saameynta badan Soomaaliya siyaasiga ugu saameynta badan weeye wadanka Soomaaliya qof siyaasi oo ka saameyn badan marka shacabka laga hadlaya adduunka shacabka wax doorta inaga deerto konton qof ayna haysta 20 qof ayna haysta oo meel ay ugu xidhay oo qabiil nin walba intuu qabiil dhigta kugu sheegay meel kugu xidhay laakiin adduunka shacabka u taliya shacabka bay ka ururiyeen xog weyn ogaadeen waxay ogaadeen inuu siyaasiga ugu saameynta badan uu yahay waxaana ogaataa dadka Soomaaliyeed wax dadna dareenka hogaamiya oo dareenka hogaamiyo ayagu aad wax uma ikhtiraacaan oo dareenku wuxuu hogaaminayaa naftiisa ayaa Ilaahay wuxuu dareensiinayaa meesha u wanaagsan waa adiga arkay qofku marba qofku u dhahayo waxaan dareemayaa wallahi in halka sakiinadu ku jirto oo macnaha waxa qofna waa qof asaga wixii la socdo oo garanayo go'aan gaaray oo maskaxdiisii aan la yeelan kadibna wixii eegay wixii maxaa dawladda Soomaaliya tan ka horeysay ka khaldamay tan maxaa u hagaagay warta kale maxaa ka khaldamay wartan hadda maxaa ka khaldan war maxaa dhiban maxaa qabsoomay halkee u soconnaa halkee ka nimin halkeenu joognaa miisaaniyadda halkee maraysaa ciidan ma leenahay maanta adduunku wuxuu naga aaminsan yahay sharafteennii ma soo noqotay caalamku si inoo arkaan dunidu markii hore si inoo arki jirtay qaramada midoobay maanta maxaynu ka nahnay wakiiladeena dunidu waa sidee diblomaasiyiinta ma isbedeshay sharafteena waa sidee wasiirkan arrimaha dawladda xaguu tagaa Soomaaliya qiimo ahaan iyo maqaam halkay gaadhay qofku markuu questions ka naftiisa weydiiyo ayuu markaa ogaa karaa jawaabaha wax walba wixii ka qabsoomay isagoo compromise sameeyo compare gareynaya wixii hore 5 sanadood ka hor ka joogtay 5 sanadood ka hor yaa madaxtooyada ka shaqeynayay 5 sano ka hor seeba waxa maxay cadaaladda seebay ahayd maaragtay nidaamka hadda waxaan taaganahay maxkamadihii oo go'aamo ka dhana dawladda gaaraya waxaan taaganahay ciidanka Soomaaliya oo bandhig military sameynaya waxaan arrimahaas mar kale ka hadli doonaa laakiin macnaha bal adigu su'aalaha inta is weydiiso adoona anigu aan kugu washabin adigu bal independently inta adigu u fikirto adoo bal maskaxda yar inta adigu mar soo celiso oo meel fadhiisato oo iska badayso waxaad aaminsan tahay kadibna fiiri isbabar dhig eeg adigu qof walba oo xaqriya cilmi uu leeyahay la dhaha qof walba oo xaqriya cilmi wuxuu ku leeyahay adigu inta arintaas oo dhan eegto oo aad kadibna qaada dhigto oo maskaxda la tashato waa inaad qirto marka u horeysa waxa ku qabsoomay iyo waxa ka dhiman marka labada isla qirto ayaad ogaanaysaa xalku meesha ku jiro laakiin hadaad beeniso waxa la qabtay iskana inda tirto waxa khaldamay
wuxuu ku hagaagmaya midnaba waxa kaaga hagaagaya waayo waxa la rabaa waxa saxdayna ama waxa ku saxana inaad ku tooqdo oo ilaahayna uga mahad celiso kuna tooqdo wixii ka qaldanna inaad tiigsato inaad hagaajiso wixii ka dhimanna inaad ku dadaasho inaad bixiso waa inta oo noloshu waa inta sideedaba xataa noloshaada naftaada qoyskaaga waa inta kolka Soomaalidu waxay maraysaa heer aad iyo aad runtii u wanaagsan oo maaragtay dhinacaas marka laga eego sidoo kale waxaa kaloo jira waxyaalaha teamka siyaasadeed ee Soomaalida runtii isbarasho weyn bay doorashada u keentay doorashada waxay keentay political loyalty waxa la yiraahdo inay factor aad u weyn tahay oo marka political loyalty waxa ka wada daacadnimada siyaasadeed group isku daacada oo wada shaqeynaya oo wada jira oo isku xiran adduunka dad aragtid qof political loyalty leh oo dadka groupkiisa u hagarbaxa siyaasadda guulba ka gaadha qofkaas sideedaba waayo hadduu kan u boodo maanta bari ka tago rag waaweyn oo madaxweynayaal Soomaaliya lagu xantaa inay boodboodaan marba group gaar ah u galaan marba koox gaar ah ay bustaha dhigtaan baa lagu xantaa guusha laguma gaadho arrinta ugu badan ee guusha lagu gaadhaa siyaasadda waxa weeye horta inaad sakiina dadka adiga kugu xeeran marka hore xulo oo taye marka ay ku yimaadaanna dadka talada wax ka sii oo soo dhaweey wadanka kula leeyihiin oo talada kula leeyihiin oo daacad u noqo oo wadanka boqolkiiba baa daacad loo noqonaya iyagana wada shaqeyntooda daacad loo noqonaya wala shaqeynaya qofkaana daacad adoo hana saaylayo inta uu wadanka uu ka soo horjeesanaya madanaha wadanka uu diidayo aan daacad loo hana qaybtaas dabashana qiimaha leh afraad ayadana daqiiqtay